السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن عمر داود عبد الله عمر دغو دمان أصحابته كسر دواد عشر كينا مانتا نحوك سابسنيا سيميلي عشر كانوا وحوكي ماذا أصحابته كحيران بيجكا سو marka waxay soo gudbiyeen 10ka muuqaalka ayaan hore anaga soo bixineen in maxaa la dhahaa afkeena hooyo marka aan ku soo fasirno 10ka si loo fahmo soo marka 10ka wuxuu ku saabsanaa simile waa maxay simile afkeena hooyo waxa lagu dhahaa ekeeye في اللغة العربية التشبيه في علم البلاغة يعني تشبيه يعني لو تشبيه يعني اكاي waa maxay afkeena hooyo hadaan ka hormarno waxaan ka bixinaynaa conceptual understanding fahan la sawiran karo ayaan waxaan ka bixinaynaa afkeena hooyo markii aan isla fahanno markaas si deeply luqadda marka ama ingiriisiga aan bilaabayna ekeeyaha waa hadal ama hawraar laba shay ama wixii ka badan laga dhexaysiinayo xiriir isku sidkan laba shay markii xiriir isku sidkan markii yani laga dhexaysiinayo ayaa waxa loo yaqaan marka ekeeye ekeeyuhu yani wuxuu qaybsamaa ilaa 4 qaybood intaan sheegin qaybaha u qaybsamay ekeeyuhu asaga ekeeyuhu horta waa laan kamid ah laamaha afka maldahan ama waxa loo yaqaan figure of speech ama figurative language figure of speech af maldan waa maxay qaybiis waa maxay yani muuqaalo kala hore aynu soo bixinay laakiin haddaan hal mar aan ku laabano afka maldahan waa hadal ama waa horar inta badan ay isticmaalaan abwaaniinta markay rabaan qof inay amaanaan ama markay rabaan qof inay dhaliilaan inay waxay ka sheegaan markay rabaan hadalka sida uu yahay maana si aan ahayn markii loo isticmaalayo waxa loo yaqaan af maldahan afka maldahan marka qaybo fara badan loo qaybiyo waxa kamid ah ekeeyaha anaga maanta daan qaadanayno shareere duurxul ama qufayn boonboonin lagaado ama quusin xus sarbeeb iyo astaameen intaas marka laamaha u qaybsan afka maldahan marka ekeeyuhu waa qayb kamid ah marka afka maldahan ekeeyaha marka asaga waxa loo qaybiyaa ilaa 4 qaybood ay u qaybsamaa loo eke u eke qalab iyo qaab ama si kala deen loo dhaho loo eke u eke wax ay isaga eg yihiin ama ay wadaagaan saa dhaado iyo ereyada waxa la isugu ekeysiinayo oo kala ah sida lagumood ama la mooda ceenkiisa tahay ama la mid ah intaas marka waa loo isticmaalaa hadda tusaalahan jumlad intaan ka bixin ka hor afki ingiriisi hadda aan u imaano simile yani afka maldahan yani simile yani ekeeyuhu is a figure of speech that directly compares two different things يعني waa maldahan ama waa figure of speech taasoo si toos laba shay kala duwan markii yani isbarbar dhig ahaan markii laba shay markii la isku sameynayo ayaa yani simile kaas ayaa loo isticmaalaa. The simile is usually in phrase that begins with the words as or like يعني similigu hadii jeer yani waa jumlada ka bilaabanaysa erayada as iyo like jumladaha ka bilaabanaya ayaa waxa loo yaqaan simile afka hooyana waxay ka bilaabmayeen yani sidaad aniga aan soo sheegayn oo kale loo eke u eke iyo maxalad waxyaabaha ka bilaabanaya waxa kamid ahaa sida iyo lagu moodaa iyo ceenkiisa iyo tahay kuwaas kamid ahaa jumladaha markay ku jiraan yani waa wax loo yaqaan ekeeye laakiin ingiriisiga as iyo like markii jumladaha ay ku jiraan ayaa waxa loo yaqaanaa maxalada simile. This is different from a metaphor يعني metaphor ku duwan yahay which is also a comparison sidoo kale metaphor kaasoo hadda jeer sina ku tilmaamayo isbarbar dhig but one says something is something else laakiin metaphor ka shay kale inuu yahay ama in lagu tilmaamayo ayuu marka uu yahay hadda tusaalahan oo kale qof hadaan he is a lion asaga waa libaax that means libaax meesh ma joogo asaga waa libaax that means asaga waa geesi yani waa metaphor haddii aan dhahno he is as brave as a lion asaga wuxuu geesi u yahay sida libaaxa ama arka that means jumladan waa simile simile waxaan isticmaalnay as he is as brave as a lion kan kalena he is a lion asaga waa libaax that means waxyaabaha kala duwan waxay tahay simile waxa la isticmaalaa as iyo like ayaa la isticmaalaa laakiin kan kale ma kala ma isticmaalo afka Soomaaliya oo kale kaya waa loo isticmaalo salaam oo kale waxa dhigi karnaa hodan يعني quruxda waxay ka raacday hooyadeeda ama hodan waxay u qurux badan tahay sida hooyadeeda hodan yani waa u eke yay u egtahay hooyadeeda marka waa loo eke waxyaabaha inta badan oo isku xiraan that means waa sida hodan waxay quruxda ay ka raacday hooyadeeda yani that means waa jumlad marka simile so marka simile involving animals simile involving natural phenomena simile involving objects simile hadii jeer yani xayawaanada yani natural phenomena iyo objects hadii jeer dhamaantooda waa loo isticmaalaa oo markii la rabo shay wax nool iyo wax aan nooleen markii isbarbar dhig ama lagu miisaaliyo shay markii la rabo intooda marka waa loo isticmaalaa hadii aan korbeerno yani xayawaanada tusaalahan oo kale as brave as a lion yani gees waa sida libaaxa shujaac kal asad
maxaa la dhahaa slow as a tortoise yani sida didiinka kale u soconaya si tartiib that means fast as a horse sida faraska oo kale yani u dheereeya sariic kale xisaar big as an elephant yani u weyn sida maroodiga oo kale ama taqamka alfiil similarly involving natural phenomena tusaalahan beautiful as the moon u qurux badan sida yani qamarka ama dayaxa jamiilka alqamar fast as a desert yani waasac u ah sida saxraha oo kale ama waasacka saxraa and far as the sky that means waa baciidka samaa yani sida samada oo kale ufog yani dhammaantooda similarly involving objectives sida white as a curtain white as curtain yani u cad sida yani suufka oo kale ama white as snowna waa la dhahaa yani waa sida barafka oo kale barafka cadaantiisa ama suufka cadaantiisa yani wax marka waa lagu ekeyn karaa ama waa lagu qaadan karaa sweet as sugar yani u macaan sida sokorta oo kale xaluka soccer yani dhammaantooda animalska natural phenomena objectiveska dhammaantooda waa loo isticmaalaa similiga simile examples using like yani tusaalooyinka simile aan yani isticmaalin weliba like aniguna u isticmaalin hadda aasa soo qaadanay like ayaan isticmaalaynaa work like a dog yani sida eyga oo kale u shaqeynaya that means eyga markii loo fiiriyo waa yani qof yani maaduna daalin waa qof marka dadaal badan and run like a cheetah u orday sida harmacadka oo kale waa qof marka aad u dheereeya and shine like the stars yani u ifay sida xidigada oo kale qof aad u qurux badan swim like a fish yani sida kalluunka oo kale u dabaalanaya that means qof dabaasha aad u yaqaana common examples of simile yani simile tusaalooyinka hadda jeer oo inta badan loo isticmaalo simile maxaa ka mid ah our soldiers are as brave as lions askarteena waxay geesiyaal u yihiin sida marka libaaxa oo kale askarteena waxaan ku miisaalinay inay geesiyaal yihiin sida libaaxa oo kale and a mind is like a parachute it doesn't work if it is not open maskaxdu waa sida parachute oo kale a mind is like parachute yani maskaxdu waa sida parachute oo kale it doesn't work ma shaqeynayso maskaxda if it is not open haddaysan furnayn maskaxda ma shaqeynayso and she is as busy as bee iyadu waxay u mashquulsan tahay sida shinida oo kale shinida mar walba mashquul character is like a tree and reputation it is shadow dabeecaddu waa sida geedka oo kale sumcaduna yani waa hooskiisa character yani dabeecaddu is like a tree yani waa sida geedka oo kale and reputation yani sumcadda mashraftana it is shadow waa hooskiisa the true friendship is as sweet as ice cream yani saaxiibka dhabta ah wuxuu u macaan badan yahay sida jalaatada oo kale he runs like a cheetah asaga wuxuu u ordaa sida harmacadka oo kale yani waa qof marka aad u dheereeya my love for you is as deep as ocean yani jaceelka aniga adigaan kuu qabo wuxuu u qoto dheer yahay sida badda oo kale as deep wuxuu u qoto dheer yahay as ocean sida badda oo kale that means jaceelka aniga kuu qabo aad ayuu u weyn yahay aad ayuu u balaaran yahay waa friendship is like a circle that never end saaxiibtinimadu waa sida wareeg is like a circle waa sida wareeg that never end taasoo marnaba aan dhamaanaynin she is as thin as a rake iyada waxay caata u tahay sida fargeedada oo kale she is as thin waxay caata u tahay gabadhan as a rake sida fargeedada oo kale so important point waxaa jirta qodob muhiim la rabo in la xasuusto hadda dhammaantood yani waxaan soo qaadanay marka yani simile so using like or as doesn't make a simile yani isticmaalida ereyada la isticmaalayo like ama as la isticmaalayo micnaheeda ma ahan ama kama dhigno in jumladan ay tahay simile inay tahay kama dhigno yani jumlad kastoo like ama as ku jira micnaheeda ma ahan jumladan inay tahay jumlad markaa simile marka wuxuu dhahay a comparison must be made yani isbarbardhig hadda jeer waa in la sameeyaa waxaan markaad simile dhehaysid waa in markaa shaygan shay kale markaa aad barbardhig waa inaad markaad kula sameynaysaa tusaale ahaan jumladan oo kale not simile yani maahan simile ma aha tusaale ahaan qof wuxuu dhahay I like a pizza aniga waan jeclahay pizzada waan jeclahay tan markaa not simile yani ma ahan simile ma ahan tan ka hoosa markaa simile ah tusaale ahaan the moon is like a pizza qamarka ama dayaxa waa sida pizzada oo kale shape markii loo fiiriyo qaabkiisa markii loo fiiriyo formka dayaxu waa sida pizzada oo kale u wareegsantahay oo kale ayuu u wareegsan yahay hadda pizzada waxaan yani comparison ama isbarbardhig waxaan kula sameynay dayaxa so maadaama dayaxan yani isbarbardhig aan kula sameynay like aan isticmaalnay jumladan waa simile laakiin tii ka horeysay I like a pizza yani ma ahan simile so in markii loo fiiriyo afkeen hooyo
inta badan abwaaniinta waa la isticmaalaa yani maxaa la way isticmaalaan wax loo yaqaano simile hadda tusaale ahaan imaansadii u tiri Allah u naxariistay abwaan cilmi boodadii ay ahayd yani sida geel haraado wax badan hoodka miranaya oo hore la soo joojiyo koreyga heeyaayo oo hubay loo qaaday iyo hadal walwaleedka kolka hodan tiraahdaanba waan soo hinqanaya yani that means asaga waxa waaye gabaygan yani waa gabay inta badan ku muujinayo yani in shay kale isbarbardhig marka lagu sameeyay wili si hada ka muuqato jumlada yani wuxuu ku bilaabay abwaanka sida geel haraado sida english kana yani like ama as mujida sida waxyaabaha kale oo inta badan maxaa la afka Soomaali waxa loo isticmaalaa la moodaa aynkiisa tahay lamid ah lagu mood dhamaantooda afka hooyo marka waa loo isticmaalaa waxaan filayaa marka